ujeedada aan ka hadlaya ay tahay xagga lacagaha lacagta markii koobaad waxaa joojiyay madaxweynaha Deni baa joojiyay haddana asagii dib ugu soo noqotay joojinteedii waayo isteedan lacagtii uu asagu iska lahaa oo macnaha dal ahaan iyo deegaan ahaanba u lahaa oo ummaddu ku kala socodsiinaysay wax ku kala gadanaysay ayuu luqmaha isugu xiray marka iyada ah waxaad moodaa ninkaasi nin isagu laftigiisu mucaarad isku noqday inuu yahay ummadiina mucaarad ku noqday wuxuu noqday nin noloshii ummadda boqolkiiba boqol burburiyay waxaa iminka jira adeegii bulshada oo dhan baa xayiran meheradihii baa la xiray wax kala soconaya inaba hal la ekaatay ma jiro sababtana cid kale oo lahayd ma jiro waxaa lahaa Deni baa lahaa haddana musharax buu wuxuu u yahay Soomaali weyn inuu madaxweyne u noqdo wuxuu mucaaradayaa madaxweynaha farmaajo mucaaradaya xukuumadda hadda jiddo federaalku mucaaradaya sababtu u mucaaradaya maxay tahay baa taal wuxuu u mucaaradaya Soomaali waxay ku maahmaahdaa ninkii waxaraha sii daayay oo yiri geelaan raacaya anigu iyo waxaraha ma raaci karo geelaan raacaya waxaraha ma raaci karo ninkii yiri dee waxarihii buu ku filaan yahay muxuu geel raacaba meesha taal صح دولتي فدرالك دولتي maamul goboleedkiiba ku filaan waaye xageebu macnaha dawlad federaal ka xukumi karaa meesha taal waxaan codsanaynaa oo mar labaad codsanaynaa mar saddexaadna codsanaynaa madaxweynaha dawladda federaalka mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo inuu naga soo gaaro Deni iyo dadkiisa inuu naga soo gaaraan codsanayna